أنا حذست أو وحبل قاعد كرين أما نيك وسافوري كرين أو محي أمرار كم الدوبين كروس ده الماس دنت وسافيرنا مركا أمر ديدو يوحس إلا إما عنده لكن مركز استوى قفود أنا استحترامان أو استحكاليانا وناب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابته آدي دين سلامينا وحن رجينا دمانتين إن في عنتين إن شاء الله وهذا مركله إن وبرنامج كله هدو بإدمو أصحابتنا قارك مدة متقنا قف كمداني راهدي ونسوي دي إن قف كسؤال ونسوي دي فرتونة وحقيقة هاي حاسة يعني لا هاي عروض بدنا يدي يد الشيء لكن هذا دبي عدي دي ويس بدل الشيء oo waan maamuli laahay caruurtii markay badnaadeen ayuu yiri haye bal qof kaas maxaan mataqaanaa maxay kula tahay su'aashaas oo soo weydiiyay way dhacdaa marka qaarkood مثلا gabadha marka hore iyama hore u horeys ilmeedii yarta ama iyada waxa laga yaabaa inay yara cabsanayso isleeda ninkii ku furin ama reerkii ka dumin hadhow markay ilmeeda bataana xidastaan hadhow ninkii geesi kula soo baxdo ama ay wareeriso ama ay maxay ahaato reerihii kala ka qasto way dhacdaa laakiin gabadhaas oo kale waa dulmi oo muxuu la jeedaa fartuunay la jeedaa inuu dhiban yahay marka hore ixtiraam iyo wanaag uu haystay nolol fiican xaaskiis uu ku qabay kadib laakiin ay gadaal canaad ku bilowday inay laalaadiso ama maxay ahaataa warkiisa maqli weyso ma dhacdaa marka saas way dhacdaa way dhacdaa waxay dhacdaa marka mesela markuu ninka xaas laba samaysto kale inay ida canaad bilowdo way dhacdaa oo markaas ay ka xintamayso gabadhii kale oo la guursaday ama maxay ahaato isku dhacyaal hore waxyaabo ay maxay ahaato dhexdooda ka dhaca inay soo go'aanayso marka asagii ay ku adkayso laakiin laba goor waa dulmi laakiin ilmaha markay bateen ma maamuli karo marka maamulka muxuu ka wadaa iyadana ilmihii haday bateen maxay ka wadaa inay ninka isfahanka inay xidhiidhso isku aragtaa inay xidhiidhsto oo waxba laga qaadi karin ama ninka uu safuri karin oo maxay ahayd amreer kama duubin karo sida ilmaha danta oo soo fiirinaya marka amar diido iyo waxaas la imaado laakiin markasta labada qofood inay istixtiraamaan oo istixgaliyaan wanaag ku jira كلما الماء سيبتان كلما اسفهم كينا وسيبتان إنه سيبتان روا ونولشنا استيهر كسي قرح بناتو because barakada iyo khayrku waxay ku jirtaa maxay ahayd isfahankiin caruurtiina in laba qofood oo kala dambaysa noqotaan oo mid kale isku canaadin ama uu isbedelin oo maxay ahayd oo uusan hadhow uusan qof kale lid ku noqonin inta badan hadii labada qofood lamaanaha ee maxay ahayd islu gooyaan oo midood kala gooyay ilmaha ka go'aysa caruurtii ka go'aysa horaan u sheegnay marka gabadhaas waxaan leenahay jooji maxay ahayd kulmiga ninkaada ku hayso hadii xaqaadii oo dhameystiran aad ka heshay caruurtaadii maxay ahaato xuquuqdoodii aad ku haysato tacliintoodii nafaqadoodii kulli aad ku haysato xaq wuxuu u leeyahay inaad maqasho warkiisa maqasho laakiin taas bilcagsigeeday noqon lahayd soo maaha maadaama hadda suu ninka sheegay ilmo badan ee u dhashay dabcan dad waa muddo isla joogay waaye marka micneed waa dad isfahmay soo maaha caruurta maadaama hadda weynaata caruurta waxay u baahan yihiin in mataqaana aabii hooyadii ay ku daydaan markaas la weynaaday in buuq la bilaabo khilaafkiinu aad u yaraadaa la haayo kaas caruurta waa weyn adinka idin fiirsanayaan way horaadii wala yareeyaan waxba dareemaynin hadda laakiin khilaafkiinu way dareemayaan wayna saa gabadhina hadda waxaas hooyada waxay ka fiirsanaysaa dhaqan xumo wiilkiina wuxuu ka fiirsanayaa aabihiis dhaqan xumo ka fiirsanaya marka hadhow reerahooda kale ay samaysan doonaan hadhow way saameynaysaa sidii oo aabii hooyada isku la dhaqmaayeen hadhow wadana guryahooda kale la tagayaan oo gabadhina hooyada kale noqonaysaa hooyadina aabiina wiilkiina marka ama aabiyo gabadha canaadaya ama hooyadii aabiyo canaadaysa ama hooyadii si xun ula dhaqmayso oo aabiyo ula dhaqmayso aabiyo hooyada si xun ula dhaqmayso ama isaga yasaay ama bahdilaayo midka kale uu dhaqlaaq xun kula dhaqmaayo caruurtay gaaraysaa hadhow marka ilaahayna ma jeclo hadhow noloshiina qoysna hadhow uma fiicno oo caruurtiinii si la roomo noqonayo dad wada jeedo dhinac u wada socdo yaa ubad wanaagsan soo saari kara laakiin dad oo saa u kala jeedo oo eegiiba maxay ahayd lid isku ah oo qofka kale mid ku taag uu yahay meel ma gaarayaan marka maana wanaagsano waxa fiican in la isku tanaasulo way adagtahay Soomaa fartuunay tanaasul marka la yiraahdo ana waxaan liigu sameeyay waxa leedahay ana waxaan liigu sameeyay kan ana liigu sameeyay ani la ii tanaasulo waayo ninkan wuxuu leeyahay ani in la ii tanaasulo waayo sababta in wada tabashada yaa badan adag yahay aad buu adag yahay laakiin markii danta ilmaha ku jirto waa shay wanaagsan oo laakiin haba qaraarada door rabo oo مثلا هذا دقاوله دينك iska furto oo ayada 5 6 cunug 7 cunug haysato ninka kale ku qaadanaya waa ku adagtahay hata kaama yeelay inuu kugu biilo
aawo ninkii dhaluu leeyahay wuu xisaabtamaya xisaabtamaya marka kii dhala waa kula sawirtid marka kii dhala inaa kula sawirtaa ku ran marka maxay ahayd heerka inta haddaysan jirin dee wax weyn oo aad ka carartaa wax weyn oo ku kala dhuntaan oo ku kala tagtaan oo ku kala maxay ahayd ku kala aysan jirin waxyaabaha qaar waa la isku wadan karaa oo gabadhii maxay ahayd waxyaabaha qaar ninka ku wadan kartaa ninkiina gabadhii waxyaabaha qaar ku wadan karaa marka mar kastaba hadday ilmaha soo weynaadaan ku talagala awownimadiinii iyo ayeynimadiina soo dhow waa inaad xishootaan marka ood gambataan oo waxyaabaha qaarkood aad maxay ahayd aad indhaha ka laabataan because gabadhaada gurkisadana hooyada la fiirina hooyada see waa laleeyahay haddaa gabadhaas waxba u beerto ku dhamaatee haddii aabahan maxay ahayd wiilkiisa dhow laga doono wiilkiisa gabar doonto cid gabar ka doonto wiilka familkiisa la fiirina aabihiisaan u horeeyo qofka la fiirina taana waa inaad mustaqbalka dambe ilmihiina aad ka darantaan oo la rabaan dariiq wanaagsan oo jeexdaan oo dad wanaagsan noqotaan oo ihsaanka badisaan oo sadaqada badisaan oo caruurta u duceysaan oo u diyaar garoodaan ilmihiina inaad dariiq jeexan oo qurxan aad u samaysaan sheekadaas waxaan kusoo xasuustay wiina isnaqaanaa shalay wuxuu ii sheegay gabar iyo isagaan isku ogaayaan weydiiyey oo waxaan dhahay aaway gabadhii adiga isla socon jirteen iskukiid ogaa inaa isguursanayseen baan u malaynayay markaas wuxuu igu dhahay maya isma guursanno hooyadeeda xun uu yiri walaalaheedna way xun yihiin marka iyada qof fiican waay le saas daraadeeda marka iskaga dhaafay gabar kale guursado yiri marka waxa hadda sheegaysid taas kale dhacda ninka aniga mid kale carab wuxuu yiri 40 gabdhood la sheekaysto mid kasta marka la sheekaysto familkooda fiirinayo familka wax xun la iga sheega waa cararaya marka taas kale lama dhacda marka حتى جوادي هذي في عندها في سمعة درادي والد كويس سامينة تي أيات الأشياء اللي مكية أيات مكية اللي ما كنت الويل كادو ودون تجبر وكدون تفهم كدون تو أولودي وادي باتو ولا أبي ساسا وعدة نوصل جران لده ومكا أخلاق حما أما سمعة حما هذا دامج كوتا مكا هذا المها صورنا وماركتي دبا أدوجيست وكريم بلاش وأسوق كرسي aad iyo aad ma santahay fartuun waxaan rajeynayaa jawaabtiis inuu walaalkeen uu ku qancay yaan rajeynayaa sabarkana waa wax wanaagsan qoysaska waxaa ishaysta iskuna sabarkaasana khayr wanaagsan iyo uwad wanaagsan ku imaanaya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu idinku barakeynaya gabar haddaad dhiban tahay dulqaado aabbo haddaad dhiban tahay waxaas ku dhiban tahay dulqaado haddii la wada hadli karo bal xal loo heli karana dhibkaasna la wada hadlaa aad ma santahay fartuun idinkana asxaabta aad ma santii si wanaagsan ee barnaamijyadeena u daawataan insha Allah taala barnaamij kale ayaan dib ugu kulmi doonaa aniga iyo adinka iyo walaashay fartuun assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh